qaraxyo iyo rasaas xoogan ayaa weli laga dhex maqlayaa hoteelka Xayaat oo ay ku jiraan dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana halkaasi ka socda dagaal qaatay in ka badan 15 saacadood. ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa loo yaqaano Alfa Group ee ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ayaa adeegsanaya hub aad u culus waxa ayna ciidankaasi isku dayayaan in ay soo afjaraan howlgalka saacadaha badan qaatay ee ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. kooxda weerarka ku gashay hoteelka oo aan ilaa hadda la ogeyn tiradooda ayaa dagaalamaya waxaana mararka qaar la maqlayaa qaraxyo miino iyo bambooyin ka dhexdhacaya dhismaha hoteelka. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in weli uu socdo howlgalkii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo weerarka Al-Shabaab ay xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho waxaana qaybo badan oo kamid ah dhismaha hoteelka galay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Alfa Group. qorayga dhishiikaha iyo hub kale oo culus ayaa loo adeegsanayaa kooxda weerartay hoteelka Xayaat waxaana rasaasta kooxdaasi loo adeegsanayo qaarkood suurtagal tahay in waxyeelo ka soo gaarto dad hoteelka ku go'doonsan. qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarka lagu qaaday hoteelka Xayaat ayaa sii kordhaya waxaana gudaha hoteelka laga soo qaaday meydadka dad ku dhintay weerarka ilaa hadda ka socda hoteelkaasi. inta la og yahay waxaa weerarkan ku dhintay dad kor u dhaafaya ilaa 10 qof ayada oo dhaawacna uu intaasi aad uga badan yahay. dadka hoteelka ku dhintay ee aan magacyadooda helnay waxaa ka mid ah ganacsade Cabdihaadi Maxamed Sheekh, ganacsade Cabdiraxmaan Xasan Iimaan, Yuusuf Mahad Barrow, Ibraahim Raage, Xasan Maxamuud Faarax iyo kuwa kale. dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Muxudiin Warbac Shadoor oo ka mid ahaa ciidankii u gurmaday hoteelka xalay fiidkii. Al-Shabaab ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay hoteelka ku dhex dishay in ka badan 20 qof balse si madax banaan looma xaqiijin karo sheegashada kooxdan. dhinaca kale warar ay heshay RTN ayaa sheegaya in xubin ka tirsanaa Al-Shabaab kii weeraray hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil amniga qaabilsan. hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan weli wax war ah ka soo saarin weerarkan. waa weerarkii ugu horeeyay ee Al-Shabaab ay ku gasho hotel ku yaala magaalada Muqdisho tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay 15kii May ee sanadkan. Xasan Sheekh ayaa ahmiyadiisa koobaad ka dhigtay in laga adkaado kooxda Al-Shabaab ase yeeshee dowladda weli ma qaadin wax tallaabo ah oo ka dhan ah kooxdan mana soo bandhigin qorshaha dagaal ee ay ku wajahayso Al-Shabaab. حافظت يا ريت تقولوا يا وجود بويا
Vamos,